kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobadaan ku soo qaadi doono barnaamijyadeedkan hadduu alla u qadaro waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo kulan gaar ah oo albaabadu xiran yihiin kula yeeshay magaalada Nairobi xogayaha gaarka ah ee wakiilka qaramada Midoobe ee Soomaaliya Ambassador James Swan hadaba kulankan maxaa looga hadlay waxaan idin wadaagi doonaa warar iyo macluumaad arintaasi ku aadan qodobada kale idin soo gudbin doono wararkeena qayb ka noqon doona haddii alweyne laga helo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay mucaaradka xasan oo isku diyaarinayo magaalada Kismaayo goorma ayuu si rasmi u furmayaa shirka golaha mustaqbalka Soomaaliya ee la qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada Kismaayo xogo ku aadan ayaanu idin la wadaagi doonaa salmida waxa wararkeena qayb ka noqon doono macluumaadkii ugu dambeeyay wasiir Fiqi oo si la yaab leh u weeraray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kuna tilmaamay hal arin oo yaab leh hadaba maxay tahay arintan waan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka faa'iideysanayo hal arin oo mucaaradka dhex taalo wararka ay wixii nagu soo kordhay ayaynu idiin soo gudbin doonaa su'aalaha saaxiibayaal haddii aad saaxiibin ku cusub nagu soo bir muuqaalka like saar aragtida wax dhisaysan ugu reeb qaybta seefalada dadweynaha waa hagaagan ku bilowno wararkeena wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa waxay ku waramayeen in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Madoobe halkaasi uu ka bilaabo kulamo kala duwan oo la qaadanayo wakiilada beesha caalamka wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Madoobe uu kulan gaar ah oo albaabadu xiran yihiin uu la yeeshay wakiilka gaarka ee Jumciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ee qaramada Midoobe ugu qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Swan kulankan ayaa looga hadlay saddex qodob oo waaweyn oo ay ka mid yihiin xaaladda Soomaaliya arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale shirka magaalada Kismaayo xogaha laga helayo wararka kulanka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Axmed Maxamed Salaam Madoobe sidoo kale wakiilka qaramada Midoobe ee Soomaaliya isla gorfeeyeen sida ay muhiim ku tahay dalka in xilligan laga samata bixiyo xaaladda adag oo ku jiro iyadoo wakiilka qaramada Midoobe uu soo jeediyay in Soomaaliya aysan u baahnayn in ay markaasi siyaasiyiinteedu ay mar walba farqa haystaan taasi beddelkeedana xal loo helo khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya si wax wada ogol ah ama doorasho wada ogol ah ay dalka uga dhacdo Axmed Maxamed Salaam Madoobe ayaa sidoo kale beesha caalamka la wadaagay in dhawaan magaalada Kismaayo ku qabanayo shir weyn oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee wadanka iyo sidii dalka looga samata bixin lahaa marxaladda uu ku jiro iyadoo shirkan uu yahay mid dowladdu lagu cadaadinayo inay qabato doorasho wada ogol ah halka filla Soomaaliya hadda ay ka shaqeynayso doorashada golayaasha deegaanka geesta kaleetana daawadayaal haddii aanu fiirino magaalada Kismaayo waxaa isu diyaarinayo dhawaantiga doona siyaasiyiinta mucaaradka halkaasi oo kulamo kala duwan oo hordhac u ah tegitaankooda magaalada Kismaayo ay durbay ka bilaabeen magaalada Muqdisho sidaynu ka soo xignay saraakiil iyo sidoo kale xubno muhiim ah oo ka tirsan golaha samata bixinta mucaaradka ayaa waxay wararku sheegayaan in 17 bishan uu bilaabo doono safarka siyaasiyiinta mucaaradka ay ku tagi doonaan magaalada Kismaayo iyagoo haddana bilaabay inay isku diyaariyaan safarkooda magaalada Kismaayo magaaladaasi oo marti gelin doonto shir weyn oo ay isugu imaanayaan dhinacyada siyaasadda ku kala markaasi fikir duwnaa muddo ka hor laakiin hadda ay midaysay diidmada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaban doono shir weyne looga tashanaya mustaqbalka dalka iyada oo ay ka soo bixi doonaan go'aamo lagu jaangoonayo xaaladda masiiriga ah iyo sidoo kale sidii dalka looga samata bixin lahaa qarka kala guurka siyaasadeed wararka laga helay kulanka waxa ay sheegayaan ama kulanka xubnaha samata bixinta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho in ugu dambeyn 17 bisha uu bilaabo doono socdaalkooda magaalada Kismaayo si ka hor 20 bisha uu u furmo shirka sida ay xogaha tibaahayaan madaxweyne Axmed Maxamed Salaam Madoobe ayaa warqadda casuumaadda soo gaarsiiyay xubnaha golaha samata bixinta iyadoo casuumaaddu sidoo kale ay gaadhay xubno hore xilli dalka uga soo qabtay suuragalnimo madaxweyne Farmaajo kaga qayb gali kara shirka ayaa xoguhu qaar tibaahayaan wixii ku soo kordhay wararkeena xiga ayaanu ku soo gudbin doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka faa'iideystay kala dhoobida siyaasadeed ay ka dhex taagan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka sida ay xaqiijinayaan ila wareedo wargala magaalada Kismaayo uu ka dhici doono shir weynaha golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa wararku ay sheegayaan in xubnaha ka qayb galaya laga reebay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi sidoo kale xubno kale oo golaha mucaaradka ku jiro qaarkood oo si u diidan Xasan Sheekh iyo qaar lagu shabadeeyay in ay Xasan Sheekh waxa uu rabo ee doorashada qof iyo codka aysan dib u arkin yacni ay adeecsan yihiin in uu Xasan Sheekh Maxamuud uu sii joogo dalka oo doorasho aanay dhicin wararka ayaa sheegaya in xubno badan oo mucaarad ah hadda ay laba garab u kala jabeen garab mucaarad ah oo aan laga reebin shirka waxaana garabkaasi ay yihiin kuwa taageersan Xasan Sheekh Maxamuud iyo garab mucaarad oo ka soo horjeeda Xasan Sheekh Maxamuud laakiin dano iyo sidoo kale isdiidooyin siyaasadeed ay ka hortaagan yihiin shirka magaalada Kismaayo labada shakhsi ee isdiidooyinka siyaasadeed ee shirka magaalada Kismaayo ay ka hortaagan yihiin ayaa waxa ay kala yihiin madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke
madaxweynaha hore farmaajo waxaa laynoo xaqiijiyey in shirkaasi ay markaasi u diidan yihiin inuu ka qayb galo xubno ka mid a golaha samata bixinta ee siyaasiyiinta reer muqdisho halka marka la eego cumar cabdirashiid cali sharmaarkana uu diidan yahay siciid cabdulaahi deni inay madal ay wada fadhiistaan maadaama siyaasad ahaan ay yihiin kuwa si weyn isaga soo horjeeda arrimahan ayaa loo arkaa inay fursad weyn ay sii siin karto madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo sidoo kale meesha ka saari karta inay madoobaan awoodda siyaasiyiinta mucaaradka martida ku aadan hoos ayaa nugu reebi kartaa warbixinada ugu dambeeya wararkeena haddaan noo soo qabto wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Bacali Fiqi ayaa si la yaab loo weeraray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda Muqdisho wasiirkii hore ee wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhaleeciyay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kaasi oo la xiriiray ammaanka magaalada Muqdisho iyo hubanti la'aanta ka jirta madaxweyne Shariif oo waraysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waraysigiisa waxa uu kaga hadlay xaaladda amni iyo sidoo kale midda siyaasadeed ee dalka waxaana uu sheegay in magaalada Muqdisho hadda uusan ka jirin amni buuxo oo la isku haleyn karo laakiin ninka Fiqi ayaa isaguna hadalkaasi si carale kaga jawaabay isagu wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray madaxweyne Shariif waxa uu sheegay in Cabdi Qadiidi sidoo kale senator Muuse Suudi Yelxo oo ah odayaasha maqaawiirta ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale arrimaheeda wax laga weydiinayo inay diyaar u yihiin in markaasi ay ka qayb qaataan doorasho qof iyo cod ah iyagoo kaararkooda codaynta qaatay laakiin in Shariifku sidaas yiraahdo waa wax lala yaabo ayuu yiri oo amniga Muqdisho uu been uu ka sheego ardayda ku aadan hoos ugu reeb warbixinadeena qaybtan waa naga tan madgaliyo wuxuu leeyahay kaalay adoo dhalinyaraha mar labaad mustaqbalkaadi markuu ku soo iftiimay mar labaad mustaqbalkaadii ka hor imow oo igula dagaalan fikir dalkan inaad adigu dhalinyaradu inaysan xuquuq yeelan oo guddoomiye hadda uu sheegay gobolka Banaadir ama guddoomiyaasha kaleba see ula xisaabtamaya degmada Wadajir guddoomiyaheeda haddaan doorto waa la xisaabtami karaa barnaamijkan marka iskuulkan sida la sheegay iskuul maahan dhismaha leh oo maamulo leh oo subax walba la isxaadiriyo maaha laakiin waa iskuul qofka la rabo bulshadiisa horta bulshada Soomaalidu sideedaba dimuqraadi weey bulsho iscaburisa dhaqankeenu dhaqan caburis maaha laakiin dawladeeni la rabay dhaqanka dadkeena inay yeelato ayaa caburis bilowday oo raadihii uu sheegay senator Dubbe waan xasuusanaa anagoo dhan dawladeeni ayaa markii madaxweynihii la dilay Cabdirashiid dimuqraadiyadii bay inqilaabku maahan guri la wareegay dimuqraadiyadii isdoorashadii bay inqilaabtay 21 sano inuu gaarsiis ilaa dadku hub intay qaataan ay dirraan oo ciidanka inta laga adeejiyo ciidanku wax laayo oo halkaas dawladeennii ay ku burburtay madax dawladda hadda jirto annaga aan ka tirsannahay waxay soo bandhigtay sanduuqa madow lama yaqaan yaa la dooranaya sanduuqaas wiilka dhalinyarada gabadha dhalinyarada qofka weyn qofka qaangaarka oo xaq u leh inuu wax doorto sanduuqaas ku rido waana la ogaan doonaa oo hadda xisbiyada tartamaya shalay waxaan arkay 200 oo qof ku dhawaad dhalinyaro ah oo xamar bile anoo ag maraya labisan jaakado oo socda oo dadkii jidka warqaday wax u qaybinaya waxna u sheegaya waa istaagay waxa yar bal hakiya waxa islaha xisbiga weynaa JSB waa misnaba hanba waa xisbi kale oo wala sayaan wallahi wala sayaan xaalku inuu saalanay nimanka 200 oo qof oo dhalinyaro socodsiiyay oo subaxii hore ahayd waliba 8:09 meelahaas waa socodsiiyay wax sahlan maahan meeshu waa dhabba anigu marka waxaan ku loo talinayaa dhalinyaradeenan halkaan joogta anagoo dadkii dalka joogay baan ka mid nahay dadka baasaboorada fursad u helay sida Cismaan Dubo kale meey halkaan aan ku kornay waxbarasho dibadda waa la aadi jiray laakiin waan ku nasiibsan ragga hadda meeshaan jooga dhammaantood waa isnaqaanaayo mashruucan madasha calaacalka u bixiyaan
mar islaan oo ay yimaadaan mar oday mar cagaf afka ku aruuray cagaf la igu qaaday adigu barnaamijka cagafka ee meeshan jaziiro lagu hayo waa wada saaxiibadeen waxa weeye warka ay ka hadlayaan iyo meesha ay joogaan dalku ma joogo ninka haddana dhahaya muqdisho nabad maahan muxuu noo sheegayaa ninkana dhahaya haddii doorasho la soo qaado qof iyo qori bay noqonaysaa qof iyo cod haddii la yiraahdo muxuu dadka u sheegayaa dadkan dhagahoodu waxay u baahan yihiin barnaamijka dimuqraadiyadda la iskuma wada raaco keeyaad aragtay